kulan si weyn loo agaasimay ayaa maanta ka dhacay xarunta maamulka gobolka Awdal ee magaalada Boorama. kulankan oo ka soo qayb galeen gudoomiyaha cusub ee gobolka Awdal Maxamed Daahir Cabdalle, maayarka Boorama Cabdiraxmaan Shide Bile, taliye ku-xigeenka qaybta ahna madaxa fulinta howlgalada ciidamada Cabil Abiib, taliyaha saldhigga dhexe ee Boorama Maxamuud Yuusuf Xuseen Raran, saraakiil iyo madax dhaqameedka gobolada Awdal iyo Salal. ujeedka kulankan ayaa ahaa sidii maamulka cusub ee gobolka Awdal iyo madax dhaqameedka ugu wada shaqeyn lahaayeen ammaanka gobolka gaar ahaan caasimada Boorama. mas'uuliyiin dhowr ah ayaa kulankan ka hadashay waxayna ku soo biyashubanayeen khudbadahooda sidii loogu wada shaqeyn lahaa ammaanka gobolka Awdal gaar ahaan magaalada Boorama laguna dadaali lahaa horumarka gobolkan. waxa bilaabmaya 100 cisho oo la doonayo in bal xukuumadda cusub istiraatiijiyadeeda koowaad inay wadanka ku dhaqaajistaan. idinkana waxa la idinka fadhiyaa sidii aad gacan nooga siin lahaydeen hadday tahay maamulka cusub iyo annagayga sii joognay barna. aad baan annagu kulli idinka mahad celinaynaa waqtiga aynu wada shaqaynayna sidii wanaagsaneed noola soo shaqaysaan. iyaguna waa inamadeenii iyagana inaad sidiisa ka fiican ula shaqaysaan ood noola shaqaysaan. annagu waan wada shaqayn doonaa kulli waan ku faraxsanahay rag aan isku grade lahayn inay nala shaqeeyaan maanta. aad baan ugu faraxsanahay because labada maskaxood ee kala waxa laga yaabaa inay wax ku kala degsanaadaan, laakiin marka dadku isku level yahay isku aragti bay noqonayaan. inaan aragtida cusub ee isku midka ah iyo sidii wanaagsaneed ee walba u shaqayn jirteen ee nabadda uga shaqaynayseen ee horumarka uga shaqaynayseen inaad loogala shaqaysaan maamulka cusubna uga shaqaysaan. hadday tahay ciidamada booliska, hadday tahay barakaafka gobolka, hadday tahay dhammaanba inaad la shaqaysaan. annagoo ku qanacsan inaad mar walba diyaar u tihiin oo heegan u tihiin. waxaan idin leeyahay oo munaasabadan aan doonayaa inaan ka idhaahdo kulan wanaagsan, isbarasho wanaagsan iyo wada shaqayn wanaagsan. maanta waxaan ku rajo weynahay inaad halkii uun kasii wadin waana shaqaysaan maamulka cusub ee ciidanka nabadgelyada loo keenay gobolka loo keenay. jil cusub baad tihiin, maskax fiyo oo fareesha inaad kusoo kordhisaan gobolka iyo waxqabad iyo dardar baa laydinka rajaynayaa. meeyarka oo dee maamulkii hore la soo shaqeeyey kana imika la bilaabayana inuu la jaan qaado siduu u ballan qaaday waa ugu mahadnaqaynaa. annaguna waxaan idin ballan qaadaynaa inaan idinla shaqaynayno haddaan nahay oqaashii gobolka. annagu waxaan nahay qolada meesha dee kol lagaga qolada kaga tagto qolada ugu timaado, qolada kaga tagto qolada ugu timaado. nin walbana waa la soo shaqayn jirnay. dee idinkana laydin gudub inagama dhacayse gallad baan idin haynaa iyo gacmo furan waan idinla shaqaynaynaa. si kastaba arrintu ha ahaatee xisbiga kulmiye ee iminka talada Somaliland haya ayaa waxa uu xilligani ku dadaalayaa sidii uu u sugi lahaa ammaanka guud ee Somaliland maadaama Somaliland ay daris la tahay dal dagaalo xoogani muddo badan ay ka socdeen. Cabdifataax Axmed, Somali Channel, Boorama. hay-adda Camuud Foundation ayaa deeq isugu jirta dhar, daawo, raashin iyo qalabkay carruurta ku cayaaraan waxa ay guddoonsiisay xarunta agoomaha ee Kaalmo ee magaalada Boorama. deeqdan oo hay-adda Camuud Foundation ay wakiil ka ahayd waxaa u soo diray carruurtan agoomaha ah ee Kaalmo ku jira urur la yidhaahdo Life for Relief and Development. wakiilka Camuud Foundation Mr. Cabdiwahaab Cige oo madashan deeqaha lagu kala gudoomayay ka hadlayay waxa uu yiri maanta rabnaa hadii rabnaan ka noqdo xaruntan aan joogno oo ah Al-Hayaat Medical Center in aan ku wareejino raashin iyo dhar ka yimid hay'adda ama ururka ama gruupka Life for Relief and Development. raashinkaas oo muddo ka soo socday Mareykan. alxamdulillah waxaa loogu deeqayaa aqoonta carruurta yaryar ee aqoonta ah ee ay hayaan ururka Kaalmo oo ay ka socdaan hooyooyinkii ama haweenkii muddada badan
gacanta ku hayay hadeerna gacanta ku haya insha Allah taala kuwaas ilaahay ha ka abaalmariyo iyagana waxaan aad iyo aad maaragtay ugu hambalyeynaa inay alaabtii ka timiday ururkan Life for Relief ay maaragtay gaarayaan maanta caruurtii yaryar loogu talagalay soo kale waxa looga yimid daawooyin aad u tiro badan walow aan rabnay waqtiga hadda daawooyinka ku qoran iyo maaragtay xilliga ay soo gaareen xilli ka horeeya inay soo gaaraan inay wacnayd marka insha Allah taala waxaan aad iyo aad maaragtay ugu hambalyeynaya ama maaragtay hambaliyo ama maaragtay uga abaal celinaynaa hay'adaas alaabta soo gaarsiisay waxaan guddoonsiin doonaa alaabta haddii rabbilaalka noqdo maanta kaalmo deeqdan waxaa lagu guddoonsiiyey ururka kaalmo xarunta cisbitaalka alxayaat ee magaaladan boorama waxaana ka mahad ceshay deeqdan mas-uuliyiin ka tirsan ururka agoomaha ee kaalmo waxayna yiraahdeen kuwii kalena ay ku daba jiraan bal horta ilaahay mahad waxaa hawshaan nala qabtay ama horumarka inta badan wax nagala qabta ay tahay maxay xayaat amud foundation hay'ad medical center oo madaxdeedii inta nala joogto waxaan leeyahay wad mahadsantihiin waana wax ilaahay loogu mahadiyo haddaad xasuusantihiin mar walba agoonta gobolka awdal u dhalatay ee u dadaalaysiin iyo inta kale ay naga maqan yahay hay'adaas Life for Relief and Development iyadana gaar baan ugu mahadnaqaynaa waxaan leenahay xidhiidhkeena maanta intahan waqtiyadan oo kalena ay tahay bishii barakaysnayd ee lagu jiro Ramadaan Kariim ay u baanayeen maanta awal ay ka caawinayeen maanta una ilaahay u koobaynahay waxaan leeyahay xidhiidhkeena noqonin intii hore hawshiina halkaan ka sii wadno waan isku mahadsantihiin guddoonsiinta deeqdan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madaxa cisbitaalka alxayaat ee magaaladan boorama Mrs Ilhaan madaxa cisbitaalka guud ee boorama Dr Ismaaciil Aye wakiilka Amud Foundation Cabdiwahaab Cige mas-uuliyiinta ururka agoomaha ee kaalmo iyo saxaafadda ka howlgasha magaaladan boorama Cabdi Fataax Ahmed Somali Channel boorama